Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaa halkan nala joogo saaxiibkay Cabdifataax Afrax Toto oo ah taageero weyn taageerayaasha Manchester United ayuu ka mid yahay. Waa taageero weyn oo rugcada ah. Marka maanta waxaan ka wareysanaynaa maadaama Manchester United maalmahan ay hoos u sii socoto oo ay sii leecayso, waxa sababta keentay inay awoodoodii ay hoos u dhacdo iyagoo sanadkii hore qaaday horyaalka Ingiriiska, Sir Alex intuuna ka tagin ka hore. Marka isaga macnaha waxaan ka wareysanaynaa waxa ku keenay Manchester United inuu dib u dhacan hoos u dhac uu ku yimaado. Marka Cabdifataax Toto ku soo dhawow. saaxiib waa maasan tahay. I think waxa ugu weyn oo hadda keenay waxaan u arkaa new managementiga, coach cusub waayo weli ma la qabsanin, laakiin we hoping mar dhow inuu la qabsado playerski iyo nin kasta line-upki sidii u hagaajin lahaa. Koobkina hadda weli dhexda unbuu maraya, weli hadda meel dheer lama jiro. I think 14 games al dheelisaan filaayo. We're not even halfway through, so I'm hoping inaan soo laabano soon. aada u maasan tahay. Hadda sanadka horyaalka waxa uu marayaa qaybtiisii hore, weli ma la gaarin qaybtii dambe. Is aragii koowaad weli lagu jiraa. Marka misleedahay Manchester United way soo laaban doontaa oo horyaalka dib ay ugu soo laaban doontaa hogaankii weligeedaba ay lagu ogaa sanadada ugu dambeeyay. si fiican waxaan filayaa Arsenal booska way nagu sii samaysaa 10 years koob la'aan inay ahaayeen. mana u maleynaa hadda kolleyba inay meel dheer gaarayso. dhexda haddii la gaaro kolleyba Man U way soo laabanaysaa. Toto waa mahadsan tahay. Manchester hadda waxa ka horeeya Arsenal keli ma ahan, lambarka 9aad ay ku jirtaa. Everton ka horeyso oo maanta ka badisay oo qaraacday 1-0 uga badisay. Waxaa ka horeeya Liverpool, Man City, Chelsea, kooxda Arsenal, kooxda weynaa dhan way ka horeeyaan, iyadoo Manchester sidaas aan looga baran inta badan lambarka koowaad, lambarka labaad iyo lambarka saddexaad. Inta badan lambarka koowaad sanadada ugu dambeeyay cirisan jirta. Marka intaasoo kooxood ma laga yaabaa inaad ka hormartaan oo idinka horyaalka aad hogaanka u qabataan? ha sababtoo Man United tiimamka la dheeshay inta badan waa tiimanka weynaa, tiimanka adadka ayaa usoo hormaray faceka ugu horeeyay. way u dhiman yihiin tiimankii yaraa inay la dheesho. That's why ay u lose garaysay in badan tiiman adag ay la dheelaysay. tiimanka waaweyn oo iga horeeyana waxaan filayaa inay tiimanka waaweyn la dheelin oo ciyaar adag ay helin, pointal easy inay heleen, laakiin we will see how it goes. Thanks. Toto waa mahadsan tahay. Su-aasha ugu dambeysa, maxaad isleedahay sabab waxa u noqon kara in Manchester United ay horyaalkii hogaanka looga horeeyo, oo ma waxaad isleedahay Sir Alex oo waqti badan meesha joogay ayaa ka tagay, mise waxaad isleedahay Giggs iyo Scholes iyo raggii oo rugcadayaasha ahaa tiimka wadi jiray ayaa meesha ka maqan? Marka maxaa sabab uga dhigaysaa in Manchester waqtigan hadda la joogo ay horyaalka lambar 9 ugu jirto? I think sababta ugu weyn horta saan u sheegay waa management cusuban. ninka maxaa la yidhi management wuxuu u baahan yahay inuu la qabsado tiimkiisa u maamuli lahaa iyo nin kasta meesha uu ku haboon yahay. midda kale waxaan filayaa dhexdii in ayadana xogaha laciif ay ka tahay, laakiinse haddii uu la qabsado Sir Alex boo ciyaartooyda hore unbuu haystay oo kaabna ku qaaday oo meel fiican uu ku gaaray. laakiin I'm hoping haddii uu la qabsado maxaa la yidhi ciyaartooyda iyo sidee meel walba ugu fiican yihiin way soo laaban doonaan. Okay, Cabdifataax wareysigeena maanta intaas ayaan kusoo koobaynaa. waxaan kaaga mahad celinaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.